hadda waxa stuudiyaha si toos ah igula sugan siyaasiga caanka ee Salaad Cali Jelle siyaasiga waxa uu ka wareysan doonaa xogna uu ka bixin doonaa sida uu arko xaalka siyaasadeed ee dalka ka jira waxa uu muuqda iyo waliba waxa uu ka talin lahaa intaba marka hore Salaad Cali Jelle ku soo dhaw barnaamijka Wardoon iyo TV-ga Soomaali Cable bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin Soomaali Cable TV waa ku dhawahay runtii waana markii labaad oo aan xaruntiisa ku soo booqdo aad iyo aadna ma taqaanaa waxaan leeyahay waa ku mahadsantihiin wada shaqeynta aan leenahay iyo sida aad uga turjumaysiin ama aad ugu gudbinaysaan shacabka Soomaaliyeed xaqiiqada dhabta ah oo dalka taala taasna waxay gacan weyn ka geysanaysaa dadaalka loogu jiro Soomaaliya inay dimuqraadiyad iyo nabadgelyo ay gaarto marka aad iyo aad u mahadsantiin waana ku dhawahay waa tahay ama santa Salaad sidoo kale ku mahad celinaa barnaamijka qaabka nooga soo qayb gashay hatta nin siyaasi ah waxaad ka wareysaa xaalka siyaasadeed dalka uu marayo waqti xaadirkan baarlamaankii waa laba dhinac ay u kala jabeen muushinaya gudoomiye Jawaari ka yaala dawladii waxa ugu badan ee hadda laga hadlayo waxay tahay muushinka gudoomiye Jawaari qaabkay wax u socdaan ka warnaaday sida wax kula muuqdaan bismillahir rahmanir rahim horta saad ka warqabta hadii taariikhda dib loo raaco Soomaaliya barlamaanadeedii ay soo martay sidaan oo kala khilaaf waa uga imaajiriyay gudoomiyihii hore oo Shariif Xasan xilligiisii waatii ay hoolka ay barlamaanku ku isku dhex garaaceen runtii markaas kamid ahaa waxa kaloo jiray xilligii Xasan Sheekhna waatii ay mataqaanaa ra'iisul wasaare Cabdiweli xilligiisii waatii ay mataqaanaa Soomaaliya toos waatii ay ka socotay iyo adiga iska qabsi iyo dhowr maalmood oo buuqa waatii la galay 2005 markii ciidamada laga doodayay hotelka Grand Regency barlamaanku kuwa ciidanka inay yimaadaan diidan iyo kuwa ogol ayay iyaguna isugu gacan qaadeen marka mar walba in barlamaan isqabto oo laba group kala noqdo oo aragti kala duwan oo yeesho waa arrin iska caadi ah oo caalamka laga yaqaan laakiin hadda midaan waxa ku soo korortay hub in la qaadayo oo xaruntii barlamaanka ayaa loo geli waayay hub awgiis ayaan barlamaankan ka maqalna hadda taas marka waxay noqotay marka arrin keenta niyad jab cusub maxaa yeelay nidaamka dimuqraadiga ah waa inuu hana qaadaa Soomaaliya waa inuu ka hana qaadaa waxaad ogtahay dib u heshiisiiniyada waxay ka dhici jireen dibadda markii dambe waatii Soomaaliya lagu doortay madaxweyne Xasan Sheekh waatii lagu doortay madaxweyne Farmaajona waatii dalka gudihiisa lagu doortay taasna waxay ahayd inaan anagu qaan gaareen oo aan horu soconayn dawladdan waxaa laga rabaa marka inay nidaamka dimuqraadiyadda qof iyo codkiis inay dalka ka hirgeliso taasna waxay ku imaan kartay in shuruucda dalka ay ku dhaqmaan oo ay mataqaanaa ay noqdaan kuwa biilasha shuruucda ay xukuumaddu soo meel marayso ay hirgeliyaan oo ay waxna ka dhigmaan waxna ku daraan laakiin ay noqoto sharciga doorashooyinka ay meel mariyaan shuruucda amniga la xiriirta ay meel mariyaan marka waxa aan rajayhayna marka waxay ahayd oo aan axzaabtuna ay mataqaanaa ay quudarayhaysa aan anigu xisbiga midnimada ee dimuqraadiyadda oo maalin dhaweeda ka qaatay bilihii la soo dhaafay guddiga doorashooyinka shahaadadii caddaynta ahayd oo xisbigu ku howlgeli lahay aan ka helnay waxay ahayd marka waxaan yidhi diilada nagu socoto waxay ahayd marka inaan qof iyo codkiis oo xildhibaan beeleed laga gudbo oo uu yimaado xildhibaan qof iyo codkiis oo waxaad ogtahay qodobka 64 ee dastuurkeena wuxuu leeyahay
xildhibaanada Soomaaliyeed oo qaranka waxaa si toos ah u dooranaya dadweynaha taa xilliga Xasan Sheekh Idool la filanayay ayaa la yiri nidaam doorasho dadba tiina waxay keentay in markaas xildhibaanadii qarash badan iyo laaluush iyo corruption ay ku yimaadaan oo markaasi ninkii aan lacag zaa'id aan wadan oo xildhibaan ka quusto tii marka idoo ciladaasi ay soo marta marka oo laakiin la yiri halaga aado Soomaaliya geedi socodkeeda maanta marka haddii barlamaankii uu shaqay waayo laba dhinac u kala baxo oo qoryo la yimaado taas waxay ku tusay marka waxay gadaal noogu celinay wixii dhacay inaan dib u ogaano oo dib u xuseysano xildhibaanadu say ku yimideen in markaasi ay dadkii ay milicsadaan oo markaasi ay in laga shalaayo ay timaado oo xildhibaankii uu markaa u damqan waayo shacabkii ka dambeeyay sidii uu u gaarsiin lahaa qof iyo codkiis marka arrimahaas oo dhan waxay markaa waa nasiib darro oo soo wajahday baarlamaanka Soomaaliya marka waxaa loo baahan yahay inay marka ay qaataan sidaan wax ka duwan ay la yimaadaan oo aynan inay shalay baarlamaanka hadda 3 qaybood loo qaybiyaa qayb waa dhalinyaro 50% lagu qiyaasaa qaybna iyagoo dhalinyaraduna ay isaga jirto haddana waa haweeno 30% ayaa haweenka ay uga jiraan 20 waa dadkii hore oo waayay aragga ahaayo markaas ma taqaanaa baarlamaanadii hore ku soo jiray marka 100% sidaas marka 50% oo dhalinyaro 30% oo haweena iyo 20% oo la dhihi karo waa dadka waayay aragiinta ahoo baarlamaankii hore ka soo shaqeeyay xildhibaanadu marka noocaas ahay oo intaas u qaybsanaa isbedelkana keenay oo maanta ma taqaanaa Xasan Sheekh oo aad ugu dadaalay inuu ma taqaanaa oo ku soo laabto isbedelka khasab kaga dhigay waxa la rajeeyay sida badanna baasaboor ajnabiya ay ku badan yihiin baarlamaanka xildhibaanada ay yihiin diaspora dad badan ay ka soo galeen waxa la rajeeyay marka nidaamkii dimuqraadiyadda inay daadihiyaan oo dalalkii ay ka yimaadeen markaasi ay noqdaan kuwa dimuqraadiyadda sida ay baarlamaanadaas kale u shaqeeyayaan dad soo arkay oo waliba xisbiye dibadda ku jira oo dalalku ay qaxootiga ka heleen ay dhici karto inay ma taqaana axjaabtooda kamid ahaayeen waxa la rajeeyay waxay ahayd marka si ismuuda oo tartiiba oo xasilan oo deganaan leh inay marka waajibkooda ay u gutaan marka maanta inay timaado marka qoray alaygaga celiyay baarlamaankii gudihiisa hoolkii ayaan qoralaygaga soo celishay inay marka ummadda Soomaaliyeed dhigeeda ku dhacaan waa arrin nasiib darra marka waxaan si rajeeyaa markaan wixii ka dambeeya inay geli doonaan hoolka haddii ay ma taqaanaa ay markaasi ay qaar careysan iyo qaar ma taqaanaa marka waxyaabo badan marka ilaa moogta siyaasaddu waxay leedahay ambition waa inay isdarbaaxiyaan oo iyagu markaas meesha isku dhex fiireen waa arrin caadiya baarlamaanka waad aragtay baarlamaanada way isgaraacaan laakiin arrintaasi waxay leedahay markaasi dimuqraadiyadda ayaa ogol in markaasi xildhibaan oo ku aragti duwanaado haddii markaasi ay mataqaan emotional noqdaanna ay feer isku dhiftaan waa arrin aan la yaab lahayn oo loo ogol yahay oo meesha ka dhici karta laakiin qoray iyo mataqaanaa meeshani waa la qabsaday iyo qoryadaba minshaaraha kor lala saaran yahay oo iridiyaa layga celishay xildhibaan xasaanad leh oo kaarkiisa wata cid celi karta ma jirto taas marka waxaan leeyahay nidaamkaa ku soo naqdaano
waajibaadkoodana si dastuuriya ha u qabsadaano ha u fushadaano haddii ay rabaan oo wax energia ku heestaan ay jiraanna markaasi gacan waa isu qaadi karaa laakiin ma jiri karto qoray ha hub ma jiri kariyo marka waxaan leeyahay marka ciil badan hadduu idinku raago oo idinka aad dhalinyaro tihiin markaas waxaa waaye gacantiina ku ciil baxa ha si aynan siyaasaddu aynan dibadda dadka Soomaaliyeed ma ahan inaad kicisiin inaad colaad iyaga kala gelisiin ma aha qabaa'ilkii aad ka soo kala jeedeen inaad marka colaad u muujisaan oo aad in qora soo qaata tiraahdaan meesha ma soo geli karto laakiin adiga siyaasadda adaa lagu wakiisho adiga ma taqaanaa hoolka lagu soo gelisho Soomaaliya inaad meel gaarsiisho oo nidaamka dimuqraadiyadda dawladnimadeedii aad ma taqaanaa horumar ku sameeyso oo maanta wax laga dhaxlo adiga lagu doortay ka fogow marka inaad iclaamka u mariso jinfadi aad ka soo jeeday inaad dhahdo qoryaha qaado taas ceeb waay sharafiya karaamo ma ahan aday ceeb kugu tahay ummadda Soomaaliyeed ay khatar ku tahay waxay ku tahay caalamka tusaalaha oo ma taqaanaa aan risaalada aan u gudbinayno oo aan rabno inay nagu taageeraan ayay lid ku tahay xil dhibaantaas ka waantoobaan aan kugu baaqa aan kula talinay wata xildhibaanada aad ugu dheeraatay ka hadalkooda xildhibaanada qaar waxay aaminsan in fargelin ay jirto xukuumadda xageeda ah xukuumadda laftirkeeda arintani gacan ma ku leedahay sida ku muuqatay siyaasi xog badan hayna waa tahay runtii waxaan isleeyahay meeshaas markaan wax ka dhaho xukuumadda waxaad ogtahay xildhibaanaa kamid ah oo wasiirada ku jira sideedana dawladdan Kenya oo diriska noo ah xildhibaan cidaan ahayn oo wasiir ka naqa karta inay jirto u maleeyma waa u xirnaa jir anaga xataa waa noo xirnaa jirtay Embagati xilligeedii kadib markii dadka qaylsheen ayaa loo furay marka waxaa la yidhi dibaddana waa laga qaadan karaa gudahana dastuurkeena asaas sheega marka xildhibaanada xukuumadda ku jira oo markaasi wasiirada ah hadda kursigooday difaacaya waa iska caddahay inay siyaasadda ku jiraan marna xildhibaan waaye marna wasiir waaye marka meesha ay xukuumadda ayaa faraha kula jirta la leeyahay marka haddii la arka wasiirkii oo marka aragtidiisi xildhibaannimo ku gudanaya ee markaas mataqaanaa guddoomiyihii mooshinka keenay ee saxiixay ee mooshinka ku jira meeshaas waaye meesha marka la leeyahay faragelinta meesha ay xildhibaanada kale oo guddoomiyaha difaacaya oo aan ku jirin baarlamaanka aan golaha wasiirada ku jirin hadda taas waa dhihi karaan meeshaas waaye meeshay ka qaadanayaan marka laakiin u maleymaayo hadda xukuumaddu meel kale ka soo geli karto ama ay faragelin ka keeni karto ma jirto laakiin wasiirkii oo xildhibaana oo mooshinki saxiixay guddoomiyaha meeshaas waaye meesha la leeyahay marka taasna hadde laba afley waayo marna wasiir waaye marna xildhibaan waaye labadaas cod uu leeyahay waa tahay waxaa tiri kursigiisoo difaacanaya ninkaas iyuu ka difaacanaya kursigiisa weerar ku ahda waxaan isleeyahay waad og tahay markii xukuumadda la ansixiyey muddadii ka dambeysaba mooshinaa la sheegi jira waad xusaysataa waxaa jiraa la dhihi jiray mooshin xukuumadda laga soo wado marka mar walba waxaan dhihi jirnay annaga xataa aan meediyaha mari jirnay in jaanis la siiyo xukuumadda maadaama ay waktiga ay mataqaanaa wakti kooban ay joogaan idoo aan 6 bilood gaarina la sheegi jiray idoo meeshin la wado naloo sheegi jiray ama dadka Soomaalida wati culimadu ay ka warrami jirta oo ay dhihi jirta mooshinkan la wado muxuu yahay oo guriyaha loogu galo la dhihi jiray xukuumaddu waxayba la dhalatay difaac maalmo 3 bilood intayna joogin ee mooshinaa la idinka keenaa leeyahay marka ilaa maalintaas difaac ay ku jireen ayaa marka halkan la galaan isleeyahay laakiin hadda mooshinka yaala mooshinkii waxaaba soo hormaray kii guddoomiyaha baarlamaanka idoo la filanayo kii xukuumadda waxaa soo hormaray kii oo
ها وهذا قيدي نيروبي إني برلمان كوشرايين أو برد آدم دعالي أو يري أنت نسينا وأو إماكرتين لكن لجمدوا ميكرو دولة إن مثلا إن فرماجة أو مدحوينها كيه لجدوا من مكرواتي لدهاي مركب وحيابها أس أو نجد حصان أو مثلا عد مركز هول كإسكول جرت أي يسلقوجهين أيلا به كرام مركز اللي وحاله يرى بدو وحي يريسو روب كهذا الدعامة هناك صوص عضا أي كان حصنته marka saasaan u arkaa aniga waatay gudoomiye jawaari mushina la keenay waa nin siyaasadda muddo badan ku soo jiray ka aragti ahaan Salaad Cali Jeelle mushin in waqtigan laga keeno sidee kula muuqataa runtii mushin oo dhan horta mushinku waxa waaye kow soo jeedin waaye barlamaankuna sidiisa wax waa ku saxaa mushinka waa wax uu adeegsado soo jeedintaasna waxay ka dhex dhalataa barlamaanka gudihiisa xildhibaanada ayaa soo jeediyay laakiin waxaa ka fiican in aan mooshin la keenino horumar kaliya laga shaqeeyo oo cid xukuumadda ha ahaato gudoomiyas ha ahaatee inaan wax la rido iyo inaan wax la ridin waxaa priority-ga leh inaan wax la ridin priority-ga leh laakiin haddii mar ay keeneen ilaa xaqay u leeyihiin dastuurka hore qoraya ay keenaan sida uu yahay oo nidaamku uu sheegayo in loo mara waayo maxaa yeelay gudoomiyaha waa laga keenay waxay tahay marka haddii laga keenay inuu mooshinkaas marka loo hoggaansamo mooshinkaasna si sharciga waafaqsan lagu keeno laguna meel mariyo markaasna moshinku wuxuu ku xiran yahay marka dastuurkaa sheegaya xeer hoosaadkaa sheegaya habka loo difaaci karo iyo habka lagu guuleysanayo lagu meel marinayo xilka loo ka qaadis gudoomiyaha loo samay karo arrintaas oo dhan sharciga iyo qodobada dastuurka iyo qodobada xeer hoosaadkaa tilmaama marka in lagu wajaho oo loo hoggaansamo oo natiijo laga gaaro ama ha fula ama yuu fulin saasaa marka waajiba maxaa yeelay gudoomiyuhu wuxuu la mid yahay madaxda kale waxaad ogtahay ra'iisul wasaarayaasha waa laga keeni jiray waa gudoomiyeyaasha waa laga keeni jiray madaxweynaha laga keeni jiray waa wado hore loo soo maray oo shuruucdeenu dhigayso marka waxaan la diidan yahay kaliya in fowdo wax lagu xaliyo oo markaas mataqaanaa shuruucdin la diido oo markaas ay timaado faragelin shisheeye oo aan ka gudubnay ilaan waan qaangaarnaan dhahna horaan u dhahna gudoomiyaha wuxuu yidhi Soomaaliya waa qaangaartay iidaana isku filan tiyaa marka anaga noo hirgasho in laga dhabeeyo waayo marka maxaa rabay oo kale inaan ku weydiiyo mooshinkan gudoomiyaha waa isjijid badan ayuu ku jiraa muddo bil ku dhow ayuu socdaa wayna caddahay dabcan khilaafku baarlamaankii ilaa hadda siduu u furmay muuna shaqeynin arbacadii wixii dhacay waad ogeyd yaa qaldan cidda mooshinka keentay miyaa dariiq qaldan ku socota kuwa difaacaya dariiq qaldan ku socda xaggee wax ka khaldayna arrintan maxay u dhamaalaada kula tahay runtii markii aan maalintii sabtida may ahayd horta masa arbacadii ay ahayd maalintii arbacada warkiina loo soo tabaayay oo aan annaga ama aan taleefoonada xildhibaanada aan kula hadlayna kuwii mooshinka ka keena gudoomiyaha way cabanayeen gudoomiyihii ayaa naga qabsaday hoolki iyagoo dhahaaya ayaan dhegeensaday idoo taasuna ayna macquula inuu gudoomiyuhu waaba meeshii xaruntiisi waaya ma ogtahay inuu qabsado qoryo ku qabsado waaba meeshi loo doorto ma ogtahay waa arrin iga yaabiso mucjisaa gudoomiyaha hoolkii baarlamaanka qabsaday war gedmaaya ma ahan marka maadaama ay cabanayeen kuwii kale markii aan warkoodii dhegeensaday
oo habeenkii ay ka jawaab celiyeen waxay yidhaahdeen annagu ciidanba ma wadanba koofiye cas ciidamo ah ayaa qabsada meesha ciidamadii iyaga la dhahayo waxbay ku qabsadeen ay iyaguna yidhaahdeen ciidankii dawladda xukuumadda mataqaanaa ciidankaas leeda annagu ciidanba ma qabaynay yidhaahden marka wararkaasi warar oo contradiction ah oo iska hor imaanayo wax ruma iyo wax saxa iyo wax beena aan la kala garanayn ayay kusoo dhammaadeen laakiin waa tii uu markaas kadib mataqaanaa amisomna ay meesha timiday tillaabooyin dhowrana waa tii ay mataqaanaa clarification iyo ciidamadii mataqaanaa taliyayaashii ay tilaabo qaadeen oo weliba mataqaanaa taliyihii madaxtooyada oo xilkiisi ku waayay waxaan isleeyahay marka hadda shirkaas shirki ku xigo wuxuu noqon doonyaa marka shir loo hoggaansamo dastuurka iyo xeer hoosaadka markaasna qoray uu ka caaganaa doonyo hoolka iyo xarunta baarlamaanka uuna shaqay doono xasaanadda baarlamaanka xibinta baarlamaanka xasaanadooda saasaan isleeyahay marka inuu marka buuqii iyo fawdadii inay marka intii hore ku ekaa doonto markaan waxay ka dambeeyana nidaamka iyo dastuurka iyo xeer hoosaadka loo hoggaansami doono shuruucdana la adeegsan doono halkii xoog laga adeegsan lahay saasaan u arkaa markaan waana ugu baaqaa inay ka waantoobaan waxyaabaha iyaga sharaf dilkooda ah shacabka soomaaliyeed iyo dalka soomaaliyana qiimo darrada u keenaya waa tahay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha doorkooda arrintani ka waran sidoo kula muuqda waxaa halkan door ku leh madaxweynaha haddii madaxweynaha saad u og tahay waa ilaaliyaha sharciga guud shuruucda dalka waana odaga guud oo qaranka isagu waxaad ogtaha maalintii hore wuu soo farageliyo waa sigi baajiyey idoo khatar weyn laga baqaayo waa tii uu madaxweynuhu uu baajiyey kadibna meelow uga farabaxsaday oo isagu uu yiri mataqaanaa madaxweynuhu uu yiri aniga hawshii tabaraan u waayey ilaan baarlamaan arrin fudud maahan oo iyaga ma ogtahay waxaa la yidhaha sayidu linafsihi yaa la yidhaha cid xukunta ma jirto naftiisa uu sayd yahay asaa isu madaxa sayidu linafsihi maadaama uu yahay oo madaxweyne oo war ka diidaayo oo hadduu doono oo war ka diidi karo haddana waxa madaxweyne oo kusoo geli kariya waxaa waaye tala odayeed ayuu usoo jeedi karayaa inuu xildhibaanka waco oo yidhaahda arrintaani qarankay dhib ku tahay waxaa la rabaa inaad noocaan iyo noocaan u dhaqantiin ayuu taladaas u leeyahay ammaanka inuu goobtana uu xukuumadda amar ku siiya in ammaanka si nadiifa oo gacan lagu siiyo siday dastuurkooda u guda lahaayeen waajibaadkoodana isaga ayaa leh sidaa darteed marka madaxweynaha waajibka laga rabo waxaa waaye marka inuu ilaa arrintaani ay ka gebangaboobayso oo baarlamaanku uu mataqaanaa khilaafkiisa uu soo afjaraayo oo nidaamka dastuuriga uu kusoo afjaraayo ama sulx wax la yidhaahaa jira oo qur-aanka uu leeyahy wa sulxun khayru in adiga wax la sulxulo oo wax la heshiisiiyo waa sharciga ugu weyn oo adduunyada ka jira marka laa khayra fi kathiiri min najwaahum ilaa man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaas haddii islaax bayna annaas wax lagu dhameeyana waa midda sharciga ugu weyn oo dastuurkeenna iyo ka sarreysa oo qur-aankeenna ku qoran taas haddii la isticmaalana waa midda ugu wanaagsan haddiise taasi ay meesha imaa weydo arrintii mooshinka xildhibaanadi keenay ayna tanasulin guddoomiyihiina ouna tanasulin oo uunan la imaan tanasul xildhibaanadina ayna tanasul la imaan in shuruucdi dalka lagu kala baxo waa midii hadda waajibka ah oo dalku ku kala soconayo marka madaxweynaha waxaan leeyahay ilaa mataqaanaa ay shuruucda dalka
ama sulx bayna naas oo ka imaanayo inuu markaa waajibay ku tahay inuu kor joogteeyo ka warhaayo arrinta oo mataqaanaa oo si wanaagsan mana filayo madaxweynuhu weli inuu ka ritiraareeyey inuu gudaha oo taladii weli wadiyo ayaan aaminsanahay aad iyo aad ana mataqaanaa ugu boorinaya inuu arrintaas oo mataqaanaa aad iyo aad ugu dadaalo oonan marnaba dib uga laabo. waa tahay waxaa tahay siyaasi weliba xisbi ayaad guddoomiye u tahay siyaasiyiinta Soomaaliyeedna inta badan waa dadka siyaasadda ka kaluumaysto ayaga dowladda hadda jirta adiga ka salaad ahaan muxaafad ma tahay sumcad ma aniga dowladdan waa taageersanahay taageerada laakiin maxaan ku taageersanahay aniga xisbiyaan wataa xisbigaas wuxuu u baahan yahay dadweynaha Soomaaliyeed inuu taageero ka helo nidaamka qabaligana in laga gudbo oo waxa 4.5 loo yaqaan na in meesha ay ka baxaan oo niman siyaasi ahayn oo na siyaasi sheega maxaa yeelay hadda siyaasigu wuxuu ku leeyahay adiga siyaasi ma tahay dhehe wuxuu ku dhahaa siyaasi baan ahoo beeshayda ayaa ii aqoonsatay inaan siyaasi noqdo meesha referensiga marka qabiilka oo siyaasadda baxaayo inuu xisbigu bixiyaan rabaa oo xisbi la gaaro marka dowladdaani waxaan ka rabaa inay dalka argagixisada ka xurayso waxaan ka rabaa shuruucdii doorashooyinka inay samayso waxaan ka rabaa inay markaasi ay suurto geliso dadku inay qof iyo codkiis ay u codeeyaan arrimahaas haddii ay doorashooyinkaas marka degaan doorashooyin hadday yihiin habka mataqaanaa loo yaqaano maxuu ahay xisbiga ahoo oo ah mataqaanaa inuu xisbigu ou si siman awood qeybsi siman oo xisbigu xildhibaanadiisa oo doorasho ku galo iyo inay degaan doorasho habka ay u ansaxayso nidaamka doorashada uu noqonayo sharcigii samayn lahaa sharcigii ay ku qurmi laheeday ayaa xukuumaddan laga raba dowladda haddii khilaaf la yimaado ama dowladda la rido annaga dib u dhacaan ugu imaanayo marka dowladda waxaan ka rabnaa nidaamka xisbiyiinta ayaa waxay u tahay nidaamka dawliga inuu horumaro ayaa annaga danu noogu jirtaa ama ay dalka ugu jirtaa arrintaasaan ku taageeraynaa haddii laga waayo oo ay arrimahaas marka ay keeni weydo qaabkaas ay inay istaakul ku tahay sidii tii hore oo dowladda xasan sheekho istaakulka ku eedo in direct meel si toosa dadku ay usoo dooro lahaayeen u bedeshay qodobkii 64aad inta hor istaagta dhahday 50 qofood ha soo doorato halkii mataqaanaa xildhibaanku oo laga raba inuu 10,000 iyo 20,000 iyo 40,000 ku yimaado haddii ay macaamilkaas la timaado markaasaan waxaan dhihi karnaa marka dowladdii waajibaadkii laga rabay oo shacabka Soomaaliyeed ka rabay in mataqaanaa kuma socoto laakiin hadda waxaan ka aragnaa inay rabto oo ay qof iyo codkiis inay dalka gaarsiiso rabto ayaan mataqaanaa ku taageeraynaa waana ballan qaada inay arrintaas ay ka mira dhalinayso marka in la burabaleen lagu keeno marka saasaan u diidana waa tahay ugu dambeyntii ay sheegtay in dowladda muxaafada aad u tahay sababahaasna ku taageerayso dadku inta badan siyaasiyiinta Soomaalida bulshadu waxyaabo lagu xantaa marka laga tago arrintaasi dan dhaqaale ama dan xil ma laga yaabaa dowladina u taageerayso ma hadda dowladda sideedaba waxaad og tahay xilkeeda 4.5 oo ku socda jinfooyinkana xildhibaanay soo dirsadeen waxa aad arkayso hadda dagaalku ka socdo wasiir isii waay ha wasiir aniga hebel xal looga dhigay oo aniga laygaga dhigi waayo dagaalku uu ku qatomaa sida badan waxa aan anagu aragno meeshaas marka meelaad adigu xil u doono karto ama aad adiga mataqaanaa rajo kaa geli karto inaad iyagii aad umir celiso oo iyagii aad gacan ku siiso sidii xilkooda u guda lahayn oo iyagu aad u dhimir celiso oo iyagii aad waaniso meel kaaga baahan waay maayna meel aad u doono karto kuraas maxaa yeelay xuudka xuud dhinaxiyaa meesha jooga
qof walba asoo xildhibaankiya oo wuxuu leeyahay wasiir haddaan layga dhigin aniga mooshinankiina waadna aragtaa mooshinka nimaan xildhibaan ahayn oo keeni kara ma jirin siyaasaddu marka saasay u cakirantaha marka iyadaasaan waxaan ugu duceyneynaa inay iyadu ayna dhibaato keenin oo xildhibaanadu ay ummadda aynan dhibaato u keenin oyna dalka colaad gelin ayaan marka mataqaanaa anagu aan ku gacan sii haynaa maahane anaga meel aan kuraas u doono karno ma aan kuraasta nooma muuqata anaga waxaan rabnaa dadweynaha soomaaliyeed inaan u doonano mataqaanaa kursiga. ugu dambeyntii arrintii Jawaari xaggiisa ah maxaad ku talaleed maxaa sakrajeynaysa inay kusoo idlaato? runtii Jawaari waxaad ogtaa waa nin odaya waana ninkii ugu horreeyey oo mar labaad la doorto waxay ku qaabsameeday in aan horta wax kun falagtiya iyo khilaafaad iyo qaylo inuuna gelin maxaa yeelay wuxuu ahaa oday siduu siyaasadda usoo galay ku dhowrsanaa haddayse dhacday xildhibaanadiina ayna tanasulayn oo ay ku taagan yihiin ay mooshinkii ay leeyihiin codha loo qaado isagina tanasuli ma uu yidhi oo kuwa waa tanasulaa yidhi mataqaana uu ka jawaabay ood ogeedo oo yidhi waa riyoonaya haddee ma ogtahay qiriya qiray timide waxa kaliyahoo inay marka kusoo dhamaan karta aan u arko xalka ooya in shuruucda dalka la adeegsado iida ayaa mataqaanaa kala reebtaa oo lagu kala baxo saasaan aniga kusoo afjari lahay waana nooca sharafta iyo karaamadu ay ku jirto oo soomaalinimadu sharciga ay dhigatay inay markaas u hoggaansanaato waxay noqonaysaa marka arrintaasi waxay noqonaysaa arrin qur-aankuna uu ogolyo wa awfuu bilcahdi ina alcahda kaana mas-uula waa inaad adiga oofisaa wixii aad ku dhaaratay ood ballan qaaday inaad oofiso oo si nidaam iyo sharafyo karaama ku jirto oo islaamnimo ku jirto inaad u meel marayso waxay kuu keenaysaa mas-uuliyadda ku saaran inaadan ku ceeboobin oodan ku sharaf beelin oo ilaahay kugu asturo taasaan noqonaysa taasaan kusoo afjari lahaa aniga. waa tahay aada u mahadsan yahay daawadayaal kaana wuxuu ahaa siyaasiga Salaad Cali Jalle ahna gudoomiyaha xisbiga midnimada iyo dimuqraadiyadda oo falanqeynaya xaaladda siyaasadeed ee dalka ka jirta.